الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وزيرة دولة فدرالك دوميها قدية دور الشدة فيد وفدية بلارن ولصعد رئيس الوزراء نوعية سكر الدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay Oktoobar tahay 3 maalin axad ah waxaa sharaf weyn noo ah wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya inuu nagu soo booqdo caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. runtii dadka reer Baraawo iyo dadka reer Koonfur Galbeedba maanta waxay u tahay maalin muhiim ah oo shucuurtooda aan la qiyaasi karin imaashaha ra'iisul wasaaraha oo muddo soo socotay inuu imaado kormeerkiisa ay ka mid ahayd. ujeeddada socodka ra'iisul wasaaraha waxay tahay asaa idiin sheegi doono, laakiinse waa dardargelinta heshiiskii doorashooyinka ee madasha qaranka lagu heshiiyey ee 17 September iyo 27 May in la dhaqan geliyo lana bilaabo doorashooyinka sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo. kormeerkii uu horey ugu sameeyey goobihii hore ee xarumaha dowlad goboleedyada dhan yaa hadda waxay bilow ka tahay tan kormeerkii labaad ee xarumihii labaad ee loo asteeyey in doorashooyinka ay ka bilowdaan. yaa haddana si markii horeba aan nasiib uga helnay xaruntii hore markuu ra'iisul wasaare noqday kormeerkiisa ugu horreeyey inuu Baydhabo ka bilaabo, yaa haddana waxaan nasiib u helnay oon uga mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha in haddana xaruntii labaad ee doorashada kormeerkii labaad uu kow ayada uu ka bilaabo isaga oo kulli mari doono. inkasta oo ay naga horreysay Garbaharey haddana laakiin dee waxay ahayd arrin dib u heshiisiin, laakiin hadda ajandaha loo socdo doorashada annagaan number 1 ahaan aaminsannahay. mudane ra'iisul wasaare aadaan ugu faraxsannahay imaashahaada. soo dhowow Koonfur Galbeed ku soo dhowow, magaalo madaxdii Koonfur Galbeed ku soo dhowow, meel lagaa yaqaano aad lagaaga jecel yahay ku soo dhowow. wax badanna lagaa sugaayey, wax allaale iyo wixii amaawiir ah iyo amar ah iyo wixii talo ahoodna siisaan fulinaynaa. waxaan noo kuu diyaarsan inaad booqatid xarumihii aan ugu talagalnay doorashada. waxaa kuu diyaarsan oon kaaga mahad celinaynaa inaad booqatid isbitaalka oo aad daawo qiimo badan aad soo gaarsiisay. sharafay noo tahay, baahideedana ay taallay. waxaad booqan doontaa magaalada Baraawe oo caasimadda oo magaalo qadiim ah oo magaalo xadaaradeed ah, ayadana waad booqan doontaa, waa arki doontaa insha Allahu tacaala. waxaad aad baad ugu farxi doontaa markaad aragtid. mar labaad iyo mar saddexaad aniga oo ku hadlaaya magaca reer Koonfur Galbeed oo dhan iyo shacab iyo maamulba, soo dhowow Koonfur Galbeed ku soo dhowow, caasimadda ku soo dhowow. aad iyo aad u mahadsan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.